till the day I die. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. halkaad iga daawanaysaan waa YouTube channelkayga Cabdalla Muxya. soo dhawaada saaxiibayaal, sidaan ku wada badansaneenba insha Allah. maanta videogan wuxuu ku saabsan yahay su'aalihii la iga soo weydiiyay Instagram-ka, YouTube commentiga iyo muxuu ahaa iyo TikTok-ga insha Allah. su'aalaha aad u tar badan yihiin, mid aan u dul istaagi doonaa, aan ka jawaabi doonaa insha Allah. wixii su'aalo aad kale qabtaan insha Allah commentiga noogu soo qora, commentigan ka jawaabi doonaa insha Allah hadduu Ilaahay yiraahdo. su-aasha ugu horeysa la soo weydiiyay waxay noqotay lottery-ga goormuu ku egyahay. dhowr jeerna ka jawaabay balse insha Allah waa ku celinayaa. lottery-ga wuxuu ku egyahay November 9 insha Allah. November 9 baa waxay noqon doontaa maalinka ugu dambeysay lottery-ga la xareeyo hadduu Ilaahay yiraahdo. insha Allah marka ka faa'iideysta, waxaa ka dhiman u maleynayaa waxaanan badnayn hadduu Ilaahay yiraahdo. insha Allah ka faa'iideysta. November 9 ayuu ku egyahay hadduu Ilaahay yiraahdo insha Allah. meeqa mar ayaa la furaa sanadkii hal jeer kaliya la furaa. hal jeer aan lagu ogol yahay insha Allah inaad xareysatid hadduu Ilaahay yiraahdo. sanadkii hal jeer la furaa, hal mar aan lagu ogol yahay inaad maaragta xareysatid hadduu Ilaahay yiraahdo. laba mar ma la apply gareyn karaa ama laba mar ma la xareyn karaa? maya, hal mar lagu ogol yahay. haddii ay wax ka khaldan yihiin sidooda inaad ku teysatid. haddii uu ku soo baxo form maxaa jira la buuxiyo la dhaho DS260 oo ay buuxiyaan dadka guuleystayaasha ah. marka insha Allah formkaas aad ku sixi doontaa wixii ka khaldamo hadduu Ilaahay yiraahdo. su-aasha xigta, baasaboor la'aan ma la xareyn karaa? maya, baasaboor la'aan lama xareyn karo. waa way jirtay la xareyn jiray baasaboor la'aan, balse hadda waxaa qasab ah in aad baasaboor haysato. haddii aan Soomaalinahane dadka baasaboor la'aanta xareyn karno oo xareyn karaan ma soo galayno qodobadaas saddexda ah ee aan horey videodeeda ugu sharxay. shahaado ma la iska rabaa? run ahaantii su-aashaaneeto aad ay tricky u tahay. yacni hoos waxaa ku qoran ugu yaraan waa inaad shahaado high school haysataa. yacni high school ugu yaraan waa inaad haysataa ku qoran markaad maaragtay qaybta muxuu ahaa waxbarashada educational levelka markaa akhrinayso. soo marka shahaado la'aan lama xareyn karo. waa inaad haysataa shahaado ugu yaraan high school ama 2 sano experience inaad haysatid, yacni shaqo skills xirfad inaad leedahay. Soomaaliya noo joogo ma xareyn karaa? yes, Soomaaliya adoo jooga xareyn kartaa. Kenya adoo jooga xareyn kartaa. meel alaal meesha joogto haddii aad baasaboor haysto shuruudahan aad soo buuxinaysid waa xareysan kartaa. ama Soomaaliya joog, ama Kenya joog, ama Ethiopia joog, ama Djibouti joog, ama Somaliland joog, meeshaad doontid joog waa xareysan kartaa. su-aasha xigta, ilmaan haystaa ilmaha ma ku xareysan karaa? yes, ilmaha haddaa haystid adiga iyo ilmahaaga iyo saygaaga maxaajiidaada wax oo dhan waa isku wada xareysan kartaan. insha Allah video aan ku sharxayo anoo qof yacni ilma haysto oo ama reer family aan u xareynayo insha Allah waa soo gelin doonaa YouTube-kayga tusaale ahaan anoo idin tusinaya insha Allah. ilmaha baasaboor miyaa laga rabaa? maya, ilmaha baasaboor lagama rabo. only waxaa looga baahan yahay ilmaha sawirkooda iyo magacyadooda insha Allah. magacyo saxan iyo sawir size-kiisa saxan yahay insha Allah la iska rabaa. America qof jooga adresskiisa ma ku xareysan karaa? maya, adresska lagaaga baahan yahay waa meesha hadda adiga aad degan tahay. adresska qofka Mareykanka markaa u baahanayso waa markuu kuu soo baxo. qof America joogo ama qof Mareykan joogo adresskiisa waxaa u baahan tahay markii uu kuu soo baxo ama aad ka mid noqoto guuleystayaasha insha Allah. postal code-ka meesha adresska la gelinayo, postal code-kaasi ma qasab baa inaan buuxiyo. tusaale ahaan markii aniga qofka aan u xareenayay postal code, no postal code aan ku qoray because Soomaaliya qof joogo postal code ma haysto. furaha 252-ga ma ahan postal code, waa code numberka yacni Soomaaliya loo ogol yahay in maaragtay qof Soomaaliya joogo markii la wacayo. so postal code-ka optional lagu siiyay haddaadan aqoonin no qore. haddii aad postal code aa leedahane wadamo horumare haddaad joogtid sida muxuu ahaa Turkiga dadka joogo, Yurub dadka joogo kaleeto postal code way haystaan. so postal code waa geli kartaa. still weli haddii aadan aqoonin adoo wadamo horumare joogo no postal code aa ku qori kartaa oo yacni qasab kuguma ahan, waa option. sawir nuucee ayaa la iska rabaa? run ahaantii su-aashaaneeto waa sharxay, YouTube-kan soo geliyey.
sawirka qaabka loo fiiriyo xataa size-kiisa inuu ku saxan yahay ama inuu sawir saxan yahay waxaan soo geliyay YouTube kan soo geliyay haddana waa ku celinayaa size-ka sawirka la iska rabo waa 600 lagu dhuftay 600 yani dhererka iyo balacaba waa inay maaragtay isku mid noqdaan ama passport size sawir ah background-kiisuna yahay cadaan aysan wax yani mugdi ah aysan ku jirin aadan dhinacaan u jeedin kor eegaynin oo kiyaala aanan wadanin waxaas oo dhan lama ogolo sawirka size-kiisa waa 600 times 600 background-kiisana uu cadaan yahay yani sawirka qaybta dambe jaaniska uu igu soo bixi karo waa meeqa ma ogi adiga iyo nasiibkaaga haddii aad qof aad u nasiib badan tahay sideedoo kale maaragtay uu ku soo baxayaa balse ma aqaano jaaniska kugu soo baxaayo waa adiga iyo nasiibkaaga iyo adiga iyo ilaahay goortuu kuu qoray inaa Maraykan imaatid insha Allah sidee loo xareeyaa su-aashaanita dhowr jeer ay igu soo noqotay anna kama daali inaan ka jawaabo sida loo xareysto YouTube-keygana waa soo geliyay anoo mid u sharxaayo anoo isku xareenaayo qof kaleeto yani informationkiisa inaa idin tusiimaan rabin ana informationkeygan geliyay anaa isku xareeyay saad maaragtay tusaale ugu qaadataan oo aad maaragtay u aragtaan marka insha Allah sida loo xareysto YouTube-kan soo geliyay YouTube-keyga ku dhufo videogan waxaa ku qoran ciwaan ahaan sidee loo xareeyaa marka insha Allah waxaa rajeynayaa videogaas haddaad fiirsatid ama aad daawato 100% inaad xareysan kartid oo qof bini aadan aadan u baahnayn sababtan videogaas soo gelin waxay tahay sanad walba qof bini aadan iyo xareey ma dhihi kartid waa inaad adiga isku filnaataa waa inaad adiga barataa kasoo ani kasoo tag ani aadana soo gelin YouTube-ka da ku qortid how to apply lottery hadaa gelisid ama Soomaali aad ku gelisid sidee lottery loo xareeyaa boqolaal qof oo sharxayana soo baxayaan so reason-ka usoo gelin waxay ahayd inaan idinku caawiyo aad barataan qaabka loo buuxsado oo aadan maaragtay sanadkan haduusan kuu soo bixin oo aniga aan kuu buuxiyay haddii sanadka kale markii la gaarin inaadan isoo wicin dee ay dhahdid Cabdallah ii xareey inaad iga kaaftoontid inaadan ii baahanin qof bini aadan kale uma baahanid videogaas haddaad fiirsatid wixii su'aal ah qabtidna sidaan hore idinku sheegay wixii su'aal ah qabtaan Instagram-ka igala soo hadla Instagram-kan dadku uga jawaabaya insha Allah su-aasha xigta website-ka xageen ka heli karaa website-ka laba meelba waa soo saaray Instagram-keygana wuu saaran yahay TikTok-keygana wuu saaran yahay haddii aad usii baahataanna waxaad ka heli kartaan muxuu ahaa videogan description-kiisa idin soo dhigaya hadduu ilaa yiraahdo markaad daawanaysaan qaybta hoose beenna waa idin saaraya insha Allah si aad maaragtay aad ugu sii tixraacdaan oo aadan mar dambe aydan ii weydiinin insha Allah su-aasha ugu dambeyso waqtiga ugu fiican ee lottery-ga la xareysan karo waa goorma run ahaantii waqti cayiman ma jirto waa adiga iyo nasiibkaaga ama dadka ugu horeeya xareysta haddaa ka mid noqoto ama dadka dhexe haddaa ka mid noqoto ama dadka ugu dambeeya haddaa ka mid noqoto wax micno ah ay soo kordhinayso malahan waa nasiib anigaan idinla hadlaayo maalinkii ugu dambeysay habeenkii weliba ugu dambeysaan xareeyay 3 saacadood ka dhinneed waxa haddii ay kuu qoran yihiin caloosha hooyada 4 bilood markaa ku haddii ay kuu qorneed inaad maaragtay Maraykan noogu imaatid waa noo imaanaysaa oo ku guuleysanaysaa haddii aysan kuu qorneen yani waxba kama qaban karno nina wuxuu dhihi jiray waxba lagama qaban karo marka waxba lagama qaban karo marka insha Allah waxaa rajeynayaa su'aalihiina dhammaan yani inay idinkaga wada jawaabay su'aalihii ugu badnaa ee soo noqnoqday intaasay ahaayeen insha Allah waxaan rajeynayaa videogan inaad maaragtay من bilow ilaa dhamaad aad ka faa'iideen oo aad si fiican u fiirsan doontaan wixii maaragtay feedback ama commentiga noogu soo qor insha Allah asxaabtaadan la wadaag nasiibkaaga tijaabi aad idin salaamaya assalaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh